إذ لا آكل كثيرا ولا أشرب الخمور. waxaa kaloo la weydiiyey sirta ka dambaysa isagoo da'dii sagaashamaadka kor u dhaafay haddana caafimaadkiisu uu fiican yahay si wanaagsanna u shaqaynayo waxa uu ku jawaabay sidan: فقد أجريت جراحتين في القلب، وعموما صحتي طيبة لأني أعيش حياة معتدلة، إذ لا آكل كثيرا ولا أشرب الخمور ولا أدخن، وأمارس بعض الرياضة للمحافظة على صحتي. laba qaliin ayaa laygaga sameeyey wadnaha. guud ahaan caafimaadkaygu hadda waa fiican yahay sababtoo ah waxaan ku noolahay nolol isu dheelitiran. cunto badan ma cuno, khamri ma cabbo, sigaarna ma cabbo. waxaan sameeyaa qaar ka mida jimicsiga si aan caafimaadkayga u ilaaliyo. sidaas ayaan ku soo gaaray da'da sagaashamaadka iyadoo caafimaadkaygu fiican yahay. haddaan kaaga jawaabo su'aasha kale ee ah sidaan ula dagaalamo musuqmaasuqa iyo sidaan ku hubiyo in shaqadu dawladdu si saxa ay ku socoto, waxaan taas ka leeyahay waxaan si joogto ah u dhagaystaa qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaan la kulmaa oo waraystaa shaqaalaha dawladda darajo kasta ha lahaadee. waxaan si joogto ah daraasado iyo qiimayn ugu sameeyaa dhammaan howlaha aan qabanayno oo dhan. waxaan sidoo kale waddanka oo dhan ka sameeyey habab lagu kala warqaato oo si joogto ah looga wada hadlo waxa noo hirgalay iyo waxa noo harsan oo aan weli noo qabsoobin. xisaabtankaasi wuxuu abuuray in meeshii aan higsanaynay aan sare uga sii kacno. aniga hawshayda koowaad waajibaadkayga waan garanayaa waa in dhammaan xubnaha dawladdu fahansan yihiin, aaminsan yihiin hawsha ay dalka u hayaan hirgelinteeda, una heelan yihiin oo ay dareemayaan lahaanshiyo. waxaan kormeerra ku tagaa dhammaan hay-adaha dawladda xilliyo kala duwan aniga oo raba inaan ogaado sida shaqada qaran u socoto. waxaan halhal ula socdaa habka shaqo oo dhan oo aan awooddaydoo dhan isugu geeyo. shaqada qaran inay ku socoto sidii loogu talagalay qof iyo koox keligood kuma aamino. waad dareemi kartaa la taliyayaashu xitaa mararka qaarkood waxaa dhacaysa inay kaa leexiyaan waddadii saxda ahayd iyagoo kuu keenaya xogo aan bislayn ama xadgudub ku ah muwaadiniinta qaarkood iyagoo ka eeganaya danahooda gaarka ah. taas keliya haddaad raacdid soo ma tihid qof khaldan. dabcan haa ayaan leeyahay. wax walba waan iska hubiyaa, waayo haddaan xafiiskayga iska fadhiisto oo isku mashquuliyo keliya shaqooyinka waaweyn ee qaranka waxa dhaawacmi karaya howlihii hoose iyo hay-adihii dalka. wax walbana hoos ayaa laga soo bilaabaa, laga soo hagaajiyaa. waa sidaan aaminsanahay mahatiir ahaan. hay-adahaasi iyagoo leh saraakiil ama mas-uuliyiin macquul ah oo aamin ah haddana iyaga keliya wax kama dhegaysto, waayo waa bani aadam. wax kasta ayaa ka iman karaa, wax kasta ayay khaldi karaan. tusaale, bishii u horraysay aan xafiiskan qabtay waxaan maqlay cabasho uu tirsanayay muwaadin ka shaqaynayay wasaaradda caafimaadka ee dalkan. markii wax laga qaban waayey cabashadiisa ayuu ka tegay shaqadii qaranka oo idil. warar kala duwan ayaa layga sheegay arrinkiisa. waxaan go'aansaday inaan muwaadinkaas xaalkiisa soo ogaado oo aan gurigiisa ku booqdo. mas-uuliyiinta madaxtooyada iyo qaar ka mida wasiiradaydu waxay ugula yaabeen arrinkaas, waayo iyagu wax yar ayay u arkayeen. aniga mahatiir ahaanse way ila weynayd. arrinkaa waan ka gami waayey. muwaadinkaas aanan xaalkiisa ogayn gurigiisa ayaan ku booqday xilli aan fasax lahaa iyadoo ay ila socdeen xitaa qaar ka mid ah qoyskayga iyo mas-uuliyiin dawladda ka tirsan. waxaan maalintaa yareeyey qaybihii brotokoolka iyo dadkii kale. albaabka waxaa naga furay muwaadinka wax tabanayay hooyadii. waxay hadalka iiga bilowday: mudane, waan ka xumahay. maxaad isku soo hawshay? annaga ayaa kuu iman lahayn. waxay intaas sii raacisay: mudane, maxaan kula qabannaa? waxaan kugu dhaanno waannu kula qabanaynaa, diyaar ayaannu kuu nahay. cajiib ayuu hadalkaasi ila noqday. qofka sidaas i odhanaya waa hooyo da' weyn oo socodku xitaa uu dhibayey. haddana waxay ku haminaysaa inay wax u nala qabato. wuxuu ahaa wax wanaagsan, hadal wanaagsan oo i dhiirigelinayay.
waxaan ku idhi wax kale ma jiraane wiilkaaga arrinkiisa ayaan u imid halkan inaan ogaado. waxay tidhi Mahathir ra'iisul wasaarihii waddanka iyo intaan oo dad ah hadday gurigayga u yimaadeen inay arrinkaas ogaadaan waa hubaal Malaysia way guulaysatay oo wax kasta oo wiilkayga lagu sameeyay intaas ayaan kaga qancayaa. waxaan la sheekaystay wiilkeedii si aan afkiisa uga soo maqlo tabashadiisa iyo sababtuu shaqada uga tegay. waxaan ku idhi yaad ka sheeganaysaa, yaad wax ka tabanaysaa. wuxuu igu jawaabay mudane cidna. mar labaad ayaan ku celiyey su'aashii. wuxuu iigu jawaabay cidna mudane waxba ka taban maayo. mar saddexaad ayaan isla su'aashii weydiiyey. markaas ayuu ii jawaabay wuxuuna yidhi waxaan ka sheeganayaa adiga. aad ayaan u yaabay. waxaan idhi sabab, sidee wax iiga tabanaysaa, aan kaa qanciye ii sheeg. wuxuu iigu jawaabay khaladka iyo dulmiga la igu sameeyey cid iiga garowda ayaan waayey. aakhirkii markaan u dulqaadan waayey arrinkaas aniga ayaa isaga tegay shaqadii dawladda. khaladkaas oo dhan la igu sameeyey mas-uuliyaddeeda adiga ayaa leh mudane ra'iisul wasaare. sow adiga ma aha qofkii dejiyey qorshaha dawladdu hadda ku shaqaynayso. haddii aad adkayn lahayd nidaamka ogaalkaaguna sarreeyo waxa la igu sameeyey ma dhaceen. hadalkaasi runtii wuxuu igu noqday mindi lagu taagay xubnaha jirkayga oo dhan. markaan ka soo ogaaday waxa uu tabanayey iyo dhammaan khaladaadkii uu ii sheegay ayaan ka soo laabtay gurigiisa. usbuuc kadib oo aan firaaqo shaqo lahaa ayaan waxaan waraystay guddigii dabagalka arrimaha shaqaalaha iyo xuquuqdooda. kadib waxaan tegey hay-addii u shaqaynayey. waxaan u tegey shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii kale. iyaga ayaan waraystay. aakhirkii waxaan ogaaday in muwaadinkaasi ahaa ceebka saliim, shaqada qarankana uu daacad u ahaa oo la dulmiyey. dib ayaan shaqadii ugu soo celiyey. sarkaalkii khaladka ku sameeyey muwaadinkaas iyo shaqada qarankaba waxa la marsiiyey ciqaabtii uu xaqa u lahaa. isla bil kadib maxaa dhacay? sarkaalkii khaladaadka sameeyey isaga ayaa iskiis shaqada isaga casilay markuu u adkaysan waayey ceebta uu sameeyey oo dadkoo dhan wada ogaadeen. waxa kaloo uu ogaaday in aanu soo jeedno oo aan qofna laga oggolaanayn musuq iyo inuu ka leexdo dhabbihii aan u qorshaynay inaan waddankan ugu adeegno. sidaas aan kuu sheegay iyo siyaabo kale oo aan halka ka sheegi karin ayaan u hubiyaa shaqada qaranku inay ku socoto dhabbihii aan u jeexnay. arrintan oo kale markaad maqasho waxaa kugu soo dhacaya nidaamka waddankeenna Soomaaliya iyo dawladnimada ka jirta. waxaa jira boqolaal qof oo shaqada uga tegey awood ay u adeegsadeen mas-uuliyiin ka sarreeya oo aanay jirin sharci dhex ah oo kala hegaya. boqolaal kale oo si khalada iyo amar ku taaglayn ah loo eriyey. hay-adaha nidaamka Soomaaliya waxaad arkaysaa kuwii ku habboonaa inay ummadda u shaqeeyaan iyagoo la dulmiyey, inay shaqooyinkii bannaanka ka joogaan, kuwa musuq ehel u ahna ay ku fadhiyaan kuraasta.